abaartu waxay sababtay ariga idaha iyo riyuhu inay iscunaan oo neefkii idaa dhawarow leeyahay neefka aracada inuu cuno dameeraha kuwooda nool iyo kuwooda dhintaba inay iscunaan waxaa ku kalifaya waa baahi ee ma jira laba makhluuq oo isku nuuca oo iscunta waxaa martay xayawaankii duurjoogta ahaa oo lahaa sagaaro oo lahaa bakayle oo lahaa dawaco oo lahaa dhurwaa kii dugaag ahaayuu bini aadamku dhibsaayey iyo kii kaleba baahida abaarta u dhintay waxa soo haray waxa dhintaa waxba waxa kale cunaa bahalka iyo duunyada ariga hadda dhintay ariga nool waa cunaa midda naftu ku jirtaa tii kale way cuni baahida ku kalifee midda tabarta xroonna midda kale dhogorta ka gureen xaaladani marka waxay jirtay sida badanba xilli roobaadyadii hadda ina dhaafay wax yaraa la arkay roobkii roob noo xigayna ma la helinba meesha saas awgeed 12 bilood oo dhadhow dhulka roob la'aan ah xoolaha ku nool iyo dadka ku nool waxaa laga yaabaa dadka biilka ay cuni jireen maadaama aysan dadkani ku tiirsaneen waxaan adduunyada cagaardaaqa ahayn in qof iyo ri isku digsi looga guro raashin oo uu sileeyahay rida markay dhowr bari kula cunto arma suuqa geeyta waayo mashaariicna uma shaqeeyaan oo hadda qof personal dawlad lacag ka qaata ka mid maahan bad qof hilib ka dabtana ka mid maahan beer dada wax soo saartana ka mid maahan